tibintii wararka dagaalka bariga dhexe ayaan ku guda jirnaa daqiiqad walba waxba isbedelaya wararkana waxay isaga soo daba dhacayaan si aad iyo aad u awood badan oo u xoogan haddii aan fiiriyo wararka hadda imaanaya Mareykanka ayaa wajahaya cadaadis xoog leh oo uga imaanaya madaxda wadamada Yurub Trump waxay ku leeyihiin war dagaalkan aad nagelisay gobolka bariga dhexe ka xulcaya ee saameyntiisa ugu ballaaranay marka laga yimaado carabta ay inaga nagu dhacayso maxay tahay waxyaabaha gaarka ah oo aad ka leedahay nafaansiibal Mareykanka arrintaas ayay saaxiibadiisii ugu waaweynaa ee Yurub caawa ay ku leeyihiin Trump xog baan idiga siinayaa Trump xiisadda meesha ay gaartay darteed gobolka bariga dhexe ka taagan safaaradihiisii gobolka ayuu wuxuu leeyahay qaarkood waa xiran yihiin shacabku ha ogaadaan shaqooyinka ay hayeenna meelo kooban oo qunsuliyada ah ayaa loo wareejiyay sida wararku ay tilmaamayaan Israa'iil oo hadasha waxa ay leeyihiin dagaalkan hadafkii iyo qorshihii aan ka rabnay wali ma gaarin sida uu ku bilowday si fiican ay ahayd meelo badan ayaa la xaqiijiyay ahdaaftii laga lahaa hasaate hadda waxba isbedelay waa in dib loo qaabeeyaa dagaalka sidaas ayayba taagan yihiin nimankii Israa'iiliyiinta ah taliyaha ugu sareeya ciidamada badda ee dawladda Iran waxa uu leeyahay war carabtan imisaan ku lahayn Mareykanku idima badbaadinayaan isku tashta wadamada Islaamka ku soo biira oo talooyinkooda iyo ahdaaftan annaga leenahay nala fahma hadda bal waxay ka helaan waxba yaanay naga siin xilli dagaalku xoogaystay waliba ayuu sidaas tilmaamayaa ninka Cabdifataax Siisi ahana caawa saddex kamida madaxda carabta ee wadamadooda xiisadaha ay wajahayaan ayuu la hadlay waxa uu ku leeyahay war intay goortahay aan isfahanno ciidamo carbeed hala dhiso xaalku ma fududa Iraq waxba ka dhacay duqaymihii waa sidoodii wixii soo kordhay ayaan kula wadaagayaa halkan indhaha ku hay oo aan ku falanqeeyo barnaamijkan aad baad u mahadsantihiin u diyaar garooba qodobadan oo fidsan ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar dawladda Iran wax badan oo la qarinaya ayay hadda banaanka keeneen taliyaha lagu magacaabo Ali Reza Tankaziri oo ah taliyaha ciidamada badda ee nidaamka Iran ayaa waxa uu leeyahay wadamada carabta muddo badan ayaan la hadlaynay aan u degnay oo aan ku dhahnay war Mareykanku danihiisa wataay isaga idin badbaadi maaye waxyaabaha uu idin sheegay intay goor tahay ka fiirsada waa diideen laakiin hadda ayay arkeen xaqiiqada rasmiga ah ee jirta hadalkan waxa uu ku soo qoray bartiisa X la yiraahdo ee hore Twitterka loo oran jiray waxa uu leeyahay sanado badan ayaan u sheegnay hogaamiyaasha dalalka qaliijka in Mareykanka iyo dalalka shisheeye aysan idin siin doonin amni dhameystiran isla markaana danahooda kaliya ay idinka gudanayaan waxay ahayd in aad fahantaan waxa la idigu samaynayo isla markaana aad la shaqaysataan wadamada dunida Islaamka sidaas ayay ahayd inaad ku badbaadi karteen maanta taliyaha ayaa intaas ku daray in xiisadda dagaal ee hadda ka dhax socota Iran Mareykanka iyo Israa'iil ay muujisay dalalka qariijka inay noqon karaan kuwa ugu horeeya ee dhibaatada iyo miraha ka imaanaya ay gurtaan waxa uu sheegay in xalka kaliya ay tahay in dalalka Islaamku ay midoobaan isla markaana gobolka ay ka saaraan saldhigyada Mareykanka sidaas ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay xilli dagaalka uu hadda gaaray meeshii ugu xumayd uguna awoodda badnayd taariikhda inta laga warhayo sida qubaradu ay tilmaameen iyadoo marka taliya Tankaziri taliyaha ciidamada badda ee dawladda Iran uu hadalkan goor dhaweyd jeediyay haddana dawladda Masar waa hoyan laadahay Cabdifataax Al-Siisi qasriga al-Ittixaadiya ayuu ag fadhiya taleefanka marba wadan carbeed ayuu wacaya wuxuu leeyahay bal xaaladda ka warrama sidee lagu hoyda caawa dawladda Masar waa idin la jirtaa laakiin imisaan idin lahaa ciidamo carbeed oo la dhisa ayaa ka wanaagsan xaaladda hadda carabta lagu badbaadin karo waxa uu la hadlay boqor Cabdullah labaad ee wadanka Urdun ama Jordan hogaamiya waxa uu sidoo kale taleefanka isku maqleen madaxweynaha Iran Mohammed bin Zayed Al Nahyan iyo boqor Tamim bin Hamad Al Thani wadamadan ogow waa laba kamida waa kuwii Trump markuu gobolka bariga dhexe marayay lacagihii ugu badnaa siinaya kuwa 3 trilyan bixiyay kuwa milyanis bixiyay kuwa diyaarado iibiyay duniduna ay la yaabanayd oo loo kala hormaraya waliba
anigaa intaa bixiyay anigaa intaa ku daray lacagahaasi oo Mareykanka lagu maalgelinayay laakiin maanta waxay leeyihiin carabta fiicnaan lahayda inaan annaga ciidamo aan leenahay oo ilaaliyo aan dhisano boqorka wadanka Urdun marka Cabdi Fataax al-Siisi uu la hadlay qasriga Itixaadiya wuxuu leeyahay qoraalka lagu sheegay boqorka waxa loo sheegay Masar inay la dareen iyo daruuf tahay wadankooda isla markaana ay ka cun tahay wixii soo gaaray madax banaanidooda iyo ku xadgudubka lagu sameeyana aan la qaadan karin intaas mooyaane wax kala jirto tacsi ahayn oo loo sheegi karo markuu intaas sameeyay kadib waa uu ka gudbay taleefanka uu kula hadlay Maxamed bin Saayid Al Nahyan oo ninka Imaaraadka hogaamiya cigaalkiisa xarnaa waayadii ugu dambeysay laakiin hadda mushkiladaha waaweyn dhaxda uga jira wadankiisa waxa labada hogaamiye isku raaceen ayaa la yiri muhiimadda ay leedahay in la yareeyo xiisadda iyo in xal diblomaasiyadeed lagu raadiyo khilaafka ka taagan gobolka bariga dhexe oo la isla soo qaaday inay muhiim tahay inta kadib boqorka wadanka Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ayuu la hadlay labada dhinacna waxay ka wada hadleen arrimahaasi taagan dawladda Masar intii dalka Qatar weerarka ay la kulmeenba oo Israa'iil ay ku soo qaadeen xilligii Dooxa la weeraray sanadkii hore waxa ay soo jeedinayeen in la gaaray waqtiga carabtu ay dhisan lahaayeen ciidamo xoog leh oo isku filnaanshiyo keena tuunkaasi kala shakigaasi waxa ay runtii keentay in xiisadu faraha ka baxdo maanta madaxweynaha Masar waxa la yiri wuxuu carabka ku adkeeyay amniga qaliijka inuu qayb ka yahay amniga qaranka Masar isla markaana loo baahan yahay in la xoojiyo fikradda amni ee wadajirka ee carabta si loo ilaaliyo xasiloonida gobolka bariga dhexe ka taagan Masar afkii baa joogda gabacaawa oo carabtiba waxay leeyihiin war waxay ahayd inaan xilli hore aan tashano isla markaana aan ka fakarno bal xiisadan in la gabagabayn karo oo aysan halka nala gaarin dhinaca haddii aan fiiriyo Israa'iilna taliyaal kala duwan oo Israa'iili ah waxay leeyihiin dagaalka gobolka bariga dhexe ka soconaya ee Iiraan lagu qaaday inagu ma rabin in uu sidan noqdo marka waa in dib loo qaabeeyo haykalka dagaalkaasi iyo hanaankiisa istiraatiijiga ah si wax weyn looga bedelo xiisadan hadda taagan isla markaana goolo degdeg ah iyo horumar leh laga sameeyo dagaalka warka Israa'iil yoom la yiraahdo oo Carabi ah ayaa waxa uu qorayaa caawa ila amni oo Israa'iili ah ayaa sheegaya in dagaalka ay Israa'iil iyo Mareykanku ku qaadeen Iiraan uu ku socon xawaarihii iyo jadwalkii hore loogu dhisay hay'adaha amniga Israa'iilna bilowga hore ay qorsheeyeen sida ay baahiyeen warbaahinta Israa'iil saraakiil amni oo aan magacyadooda la shaacin ayaa sheegay in weerarkii ugu horeeyay ee ololaha military ee bilaabmay sidii loogu talagalay u dhacay balse horumarka dagaalka hadda uu aad gaabis u yahay waxay soo jeediyeen in la gaaray in bal isbedel la sameeyo oo sidoo kale la qaabeeyo qubarada istiraatiijiga ah ee dagaalka falanqeynaya waxay leeyihiin tani waxa ay qiraysaa in dagaalkan goolihii la rabay dhinacyadan aysan ka gaarin isla markaana ay tahay xaqiijinta fashil degdega oo yimid sidaas daraadeedna Iiraan wixii la filayay wax ka duwan lagala kulmay taasoo hadda Mareykanka iyo waliba Israa'iiliyiintu ay doonayaan inay isbedel ku sameeyaan qaabkii hore ee howlgaladooda hadda marka maxaa la sameeynaya waxaa la sameeynaya isbedel waaweyn caawa Israa'iil 450,000 oo askari oo kayd ahaa ayay u yeereen Mareykanku waxa uu bedelay istiraatiijiyadiisa amniga waxaana sidoo kale soo baxaya warar runtii dheel leh oo labada dhinac oo dagaalka ku jirta ay wajahayaan wargeyska The Bloomberg caawa waxa uu qorayaa in madaxda Yurub ay durbaba bilaabeen inay cadaadis saaraan Trump iyagoo oranaya waa in aan fahan iyo aqoon ka helno yoolalka dagaalkan iyo waliba sidii loo soo dhamayn lahaa waxay leeyihiin dagaaladan saameyn badan ayay nagu yeesheen marka sidaa daraadeed waa in isbedel lagu sameeyaa oo saan aysan suuragal ahayn madaxda dalalka Yurub ayaa intii wada hadallo ay lahaayeen balini kooxda G7 loo yaqaano waxay madaxweyne Trump ku cadaadiyeen bal in uu dagaalkan dhamaadkiisa bidhaamiyo waxaana sidoo kale golahan ay isla gaareen baa la yiri in la helo dhowr ujeedo oo ku saabsan dagaalkan waqti dhow in la gabagabeeyo waxaana Trump ay u soo jeediyeen in haddii Iiraan uu si gunfog u baabiiyay yoolalkii uu ka lahaa hadda dagaalka la dedejiyo
dhammaadkiisa oo wixii hadda ka dambeeya aysan sii aqbali karaynin. dowladda qatarna warbaa ka soo baxay hadda oo aan idin hadlayo Al-Jazeera qoraysa waxay leeyihiin wadanka xaaladiisa waa degan yahay macluumaadka iyo ilaha rasmiga ah dowladda oo kaliya ayaa haysa wararka baraha bulshada lagu qoraya yaan la qaadan waxay abuurayaan qalqal weyn oo amni marka cabsi badan baa jirta caawa wadankaasi laga sheegay dowladda Mareykanka waxay tiri qaar ka mid ah safaaradaheena waa la joojiyay shaqooyinkooda gaar ahaan tan Urdun shaqadana waxaa loo bedelay ay yiraahdeen qunsuliyad gaar ah oo arintaasi ka shaqeynaysa wargelin ayaa la siiyay dadka bariga dhexe gaar ahaan wadankaasi ku nool madaxweyne Trumpna waxa uu ballan qaaday in marinka Hormuz uu noqon doono mid furan isla markaana ay difaacayaan maraakiibta halkaasi isticmaalaysa waqtiga uu dhaqsiyaha badan howlgal ay ka sameyn doonaan halkaasi sida uu tilmaamay wadanka Ciraaq gaar ahaan magaalada Baghdad caawa 4 qarax oo waaweyn ayaa laga maqlay iyadoo meelaha qaarna laga soo sheegayo in xiisada ay ka taagan tahay Jazeera waxay leedahay Lebanon wali duqeynta waa ka socotaa halka Israa'iilna halka Jaliil loo yaqaan waliba qaybta sare ay hadda uu ka baxayo dhawaqan shaqarta ka digta gantaalaha taas oo dadka loo sheegayo in ay dib ugu laabtaan guryahooda wakaalada wararka Reuters oo xiganaysa ila amaana waxay tilmaantay in qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen meelo kala duwan oo kamid ah Iran gaar ahaan halka loo yaqaan Suleymaniya iyo sidoo kalena gantaale Iran ay ku qaraxday Kurdistan Ciraaq gantaalahaas waxa uu heliyo baa leeyahay diyaaradaha droneska Al-Jazeera sidaas ku waramaysa wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa Mareykankana waxa uu leeyahay maamulka Trump waxa uu qorsheynayaa in uu dib ugu yeero saaxiibadiisa caalamka balse ay isbahaysi ula sameeyaan in marinka Hormuz xiisadihiisa lala badbaadiyo halkaas ay hadda wax marayaan indhaha ayaan ku sii hayn doonaa wararka soo kordha Lebanon baa hadda war ka soo dhacay 10 qof ayaa dhimatay 13 kalena waa dhaawacmeen kadib markii weerar ay ka dhaceen koonfurta sidaas ay wararku sheegayaan caawa oo dagaaladii xiisadoodii ay halkaasi ka socdaan Iraaqna warbaa hadda ka soo dhacay aan idila hadlayo oo il amni oo Ciraaq Al-Jazeera ay ka xaganayso waxay leeyihiin waxa la beegsaday goobo logistic ah oo ku yaala Baghdad oo garoonka diyaaradaha ku dhow halkaasi oo wararku ay tilmaamayaan inay waxyeello soo gaartay kadib markii 5 gantaal iyo diyaarado droonisa lagu weeraray xogta ayaa sidaa tilmaamaysa qaybta koonfurta Beirutna